magaalada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia ayaa waxa ka dhacday xaflad aad u ballaaran oo lagu sii sagootinayay ilaa 105 arday oo Soomaaliya oo ka qalin jabiyay jaamacadaha wadankaasi. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa sii badanayay ardayda Soomaalida ee wax ka barta jaamacadaha wadankaasi maadaama Soomaalidu fiisalaan ay ku galaan dalkaasi si weynna loo amaano waxbarashada dalkaasi. wariyaha nooga soo warrama magaalada Kuala Lumpur سعيد ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray. xaflad cashaha oo aad u heersareysa isla markaana lagu sagootinayay ardayda Soomaaliyeed ee ka qalin jabisay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia ayaa lagu qabtay hotelka Adamson ee ku yaala bartamaha Kuala Lumpur. xafladda tani ayaa waxaa soo qaban qaabay ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia waana midii ugu horeysay ee isla markaana isugu keenaan ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala gobolada iyo caasimadda. waxaana casho sharaf kadib ardayda lagu guddoonsiiyay shahaadooyin ay bixinayaan ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia taasoo ay ahayd bogaadin iyo dhiirigelin. gudoomiyaha ururka ardayda Cabdullaahi Maxamed Cali Suldaan ayaa iga warbixiyay tirada ardayda qalin jabisay sanadan isla markaana ay diiwaan geliyeen. sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardaydii qalin jabisay ayadoo qaar kale oo ardayda kamid ah oo goobta ka hadlayna ay u mahadceliyeen intii gacanta ka geysatay waxbarashadooda iyo qabsoomida xafladda tan. tirada aynu diiwaan gelinay sanadan ardayda ka qalin jabisay ee dalka Malaysia waxay gaarayaan ilaa 105 arday. waxaan u qabanay xaflad aad u weyn oo aad isku marxabeeyay. waxaan leeyahay hambalyo dhammaan ardayda ka qalin jabisay dalka Malaysia. waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta qalin jabiyay maadaama waxay u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay u suuragelinay heerka kalimaado. waxaan mahad gooni u jeedinayaa waalidiinteedii soo gacan qabatay cid walba oo ka qayb qaadatay inaan heerkan soo gaaro. anigoo Firdawsa Xasan Xuseen dhigtana Malfan International Academy dhameeyana software engineering IT dhammaantu waxaan u wada mahadnaqayaa gudoomiyaha Cabdullaahi Suldaan gudoomiyaha ku-xigeenka dhammaan intiina noo soo agaasintay xafladan aad u quruxda badan dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad u mahadsantiin. biyaaqada sanad waliba ayaa waxay ku aadan tahay qalin jabinta ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala Malaysia kuwaas oo ay qayb ka yihiin ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Malaysia. sidoo kale waxaa barbar socota in sanad waliba ay ku soo biiraan arday Soomaaliyeed kuwaas oo doonayna wax ka barta Malaysia. Saciid Umar, Universal TV. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Saciid Umar oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia. waxaanu hambalyo leenahay ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha wadankaasi.